wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow kana mid ahaa musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Soomaaliya sanada 2020-2021 lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa waxaa xarigiisa la sheegay in uu yimid kadib markii uu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. ilaa hadda lama oga sababta ka dambeysay xariga xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ahna musharax madaxweyne. xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee u tartamaysa xilka madaxtinimo ee sanada 2020-2021 mana jiro ilaa iyo hadda warar ka soo baxay dhinaca Somaliland ee ku aadan xariga musharax madaxweyne Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow iyo sababta ka dambeysay. hasaate Somaliland ayaa kal hore waxa ay ku dhawaaqday in cafisa loo sameynayo siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland ee ka degaysa garoonka diyaaradaha Hargeysa. Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow kama mid ahaa xubnaha siyaasiyiinta ee ka soo jeeda Somaliland ilaa haddana lama oga sababta dhalisay xariga musharax Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ilyas Daawud Xasan, VOS TV, Muqdisho.